Amber Kaiser collapses with grief, crying out for her slain children. My babies, my babies. Oh God. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kusoo dhawaada asxaabta qaaliga ah Garaasa Channel. haddii ay tahay markii ugu horeysay ee uu kusoo gaarayo muuqaalkan, fadlan channelka subscribe saaro, gambaleelkana furo, like inoo saar, sharetu waa inoo dhiirigelin si aan u helno asxaab sida adiga oo kale u qiimo badan. haddaba mowduucayna aan u gudagalne maanta. mowduucayna waxa uu ku saabsan yahay ninkan lagu magacaabo Timothy Jones Jr. ninkan waxa uu dhashay sanadii 1982. hadda da ahaan waxa uu jiraa xilligan aynu joogno 40 sano. ninkan noloshiisa haddii aan yara faahfaahin idinka siiyo, ninkan waxa uu ahaa nin ku nool ama degan carigaasi dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka lagu magacaabo South Carolina. sidoo kale ninkan waxa uu ahaa nin xaas leh oo xaaskiisa waxa lagu magacaabi jiray Amber Kaiser. ninkan xaaskiisa waxa uu guursaday sanadii 2004, waxa ayna kala tageen sanadii 2013. waxa ay u dhashay xaaskiisii 5 caruur oo intaba ay wiilal ahaayeen, waxaana lagu kala magacaabay Mary Garcia oo ahaa curadka reerka, waxa uu jiray 8 sano. waxa ku xigay Elias oo jiray 7 sano, iyo Nathan oo jiray 6 sano. sidoo kale Gabriel oo jiray 2 sano, iyo wiilka reerka ugu yaraa oo lagu magacaabay Eliana oo da'diisu ahayd 1 sano. ninkan dhankiisa waxbarashada haddaan fiirino, ninkan waxa uu dhameeyay iskoolka sare, sidoo kale waxa uu ku daray jaamacadda, halkaas oo uu ku takhasusay cilmiga loo yaqaano computer engineering. ninkan markii uu waxbarashadiisa dhamaystay, waxa uu shaqo ka helay kambaniga caanka ah ee kombiyuutarada soo saara ee lagu magacaabo Intel. haddaba ninkan noloshiisii sidaas ayay isugu toosneyd. waxa uu ka qaadanayay kambanigaas $10 oo mushahar ah. haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay, sidan ayay wax kasta ugu wanaagsanaayeen, goormee wax kasta isbedeleen? sidaan horey usoo sheegaba, ninkan xaaskiisii waxa ay kala tageen sanadii 2013. sababta keentay kala tagoodii ayaa waxa ay ahayd ka gadaal markii uu ninkan uu ku qabtay xaaskiisa iyada oo khiyaamaysa, oo waxa ay ka raacday wiil dhalinyaro ah, taasoo meesha keentay in ay kala tagaan. kadib kala tagoodii, ninkan waxa uu awood u yeeshay in uu isagu caruurta gacanta ku hayo, waxaana ka saaciday kharashaadkaas badan ee uu ka qaadanayay kambaniga, oo ay maxkamaddu u aragtay nin ka soo bixi kara masruufka caruurtiisa. laakiin ninkan caruurtii markii ay hooyadood khiyaantay, waxa uu u qaaday nacayb saa'id ah, oo marka ay khalad yar galaanba si daran ayuu u ciqaabi jiray. dadka dariskiisa ahaa waxa ay sheegeen in ay caruurta aabahood si saa'id ah u jeclaayeen, laakiin maadaama ay caruur yaryar ahaayeen, markii ay khalad galaan waxaa soo food saari jiray ama ay dareemi jireen walwal iyo cabsi saa'id ah, oo aabahood si saa'id ah ayay uga cabsan jireen. wuxuu sidaas ula dhaqmaba waxaa kasoo wareegtay sanad iyo bar. kadib waxaa la soo gaaray maalinka ay wax kasta isbedeleen, oo ku beegnayd 14 Agoost 2014. maalintan sidii caadada ahayd, Timothy waxa uu kasoo laabtay shaqada, oo waxa uu guriga yimid xilligii caadada u ahayd ee uu guriga maalin kasta imaan jiray. kadib caruurtiisii ayaa bilowday in ay la ciyaaraan ama prank ku sameeyaan aabahood, oo waan wada ognahay caruurtu markii ay yar yihiin ma jiraan wax ka ciyaar jecel, oo waalidkood waa la ciyaaraan. laakiinse maxaa ka raacay? Nathan oo jiray 6 sano, ahaana cunuga saddexaad ee wiilashiisa, oo rabay inuu la ciyaaro aabihiis, ayaa korontadii guriga damiyay. aabihiis ayaa u yeeray. kadib markii uu ficilkaas sameeyay, Nathan waxa uuna ku ciqaabay in uu sameeyo push up. wiilkii yarka ahaa ma waxaad isleedahay 10 push up iyo wax noocaas oo kale ah ayuu ku ciqaabay, oo kadibna waa iska cafiyay? may, waxa uu ku amray wiilka in uu sameeyo dhowr saacadood oo xiriir push up ah. haddii uu kala joojiyana uu suun ku garaaci doono. wiilkii markii uu dhowr saacadood alimitadii sameynayay ayaa waxa uu ku dhacay dhulka. waxa uu yiri waa daalay sariirtiisa balgee, laakiin wiilkii ayuu dhaqdhaqaaq dhan jirkiisa ka waayay. waxa uuna garowsaday in wiilku ay naftii ka baxday xaasisana ninku.
kadib maxaad isleedahay go-aan ayuu ku gaaray ninkan markuu ogaaday ficilkan uu sameeyey inuu wiilkiisii ku geeriyooday ayaa waxa uu go-aansaday in uu dilo 4tii kale. alla xaasisana ninka oo damiir xumaa. maxaad isleedahay waa uu ku dilay ama qaab noocee ayaad isleedahay ninkaas carruurtiisii waa u dilay? ninkan suun ayuu inta uu soo qaatay ayuu mid kasta surka uga ceejiyey ilaa ay naftu ka baxaysay ama uu ka wada dilayay dhammaantood. kadib markii uu wada dilay kulligood ayuu meydadkoodii ku guray bac. wuu aasay miyaad isleedahay? maya. gaarigiisii ayuu inta soo istaartay sidii alaab oo kale gaariga boostakaanadiisii dambe saartay meydadkoodii oo magaaladii dhammaydba waa isaga haajiray oo waa isaga tegay oo waa iskala safray carruurtii oo waxa uu gaariga ku sitay ilaa iyo 9 maalmood oo ninkan maba dhigi lahayne isaga oo ku safray gobolka Alabama ayaa askartii kontaroolka ku sugnayd markii ay gaariga baarayeen waxa u soo uray meydkii ilmaha. markii gaarigii baaritaan lagu sameeyey ilmihii meydkoodii ayaa meesha loogu tagay. alla ninku naxariis darana muxuu ahaan. kadib ninkan booliiska ayaa xabsiga u taxaabay. haddaba ninkan markii maxkamadda la horkeenay ayuu waxa uu qirtay in dembigan uu isagu geystay carruurtiisana uu isagu dilay. haddaba xilligii ay maxkamadaynta ninkan socotay dadkii la horkeenay waxaa ka mid ahayd xaaskiisa hore oo aad uga oyday ninkan waxa carruurtiisa uu ku sameeyey iyo sida naxariis la'aanta ah ee uu dilay carruurteeda. waxa ayna sheegtay carruurteeda aabahood in ay jeclaayeen. waxa ayna maxkamadda ka codsatay in la iska cafiyo ninkan carruurteeda dilay. go-aankaas oo dadkii maxkamadda dhammaantood ka yaabiyey oo iyadu waxa ay tiri aniga shaqsi ahaanteeda waan iska cafin lahaa. dadkii kale ee maxkamadda la horkeenay waxaa ka mid ahaa Timothy hooyadiis iyo aabihiis. labadooda iyaga oo si saa'id ah u ooyinaya ayay si cad maxkamadda uga codsadeen in dhimasho lagu xukumo. ugu dambeynna markii ay maxkamaddu aragtay cadaymihii iyo dambiyadii lagu helay ninkan waxa ay ku xukuntay dhimasho. ilaa iyo haddana waxa uu sugayaa in xukunkaas lagu fuliyo oo xabsiga ayuu ku jiraa. arrintan ayaa noqotay wax aad looga xumaaday guud ahaan dalka Mareykanka sanadii 2014 aadna looga hadalhayay warbaahinta dalkaas iyo midda caalamkaba. daawade adigu ninkan maxaad ku xukumi lahayd? fadlan haddaad muuqaalka ka heshay like inoo saar, sheertaad waa inoo dhiirigelin, channelkana subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu soo gelino. mahadsan.